Kevin De Bruyne ayaa banaanka soo dhigay caradiisa kulankii ugu dambeeyay ee ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City taasi oo soo jiidatay warbaahinta gudaha dalka England. Waxaa iska cadeed in Kevin De Bruyne uu si xoogan u doonayay inuu dhameysto ciyaarta ka hor inta uusan bedel ku saarin Pep Guardiola. Manchester City ayaa ku garaacday 9-0 Brighton kulankii lugta hore wareega 16 ee tartanka Carabao Cup ka hor inta uusan De Bruyne si caro leh kaga bixin ciyaarta kadib markii uu bedel ku saaray Pep Guardiola. Guardiola ayaa mar wax laga weydiiyay falcelintii uu sameeyay De Bruyne kadib markii uu ciyaarta ka saaray wuxuuna ugu jawaabay ma garanayo waxa dhacay ilama hadlin aniga sidaas darteed ma aqaano waxa dhacay haddii ay jirto De Bruyne dhibaato igala dhaxaysa wuxuu ka warqabaa halkan aan joogo aanan la hadlin markan mana awoodo inaan sheego waxa ku jira qalbigiisa. Guardiola ayaa dhowr jeer ee hore sheegay in uu muhiim u yahay inay kooxdiisa si fiicnaato ama si fiican ay u ciyaarto si loo hubiyo arintaas in ciyaartoyda ay si joogto u ciyaaraan. Waxaan qabaa in ciyaartoyda oo dhan ay si fiican kaga warqabaan arintaasi laakiin mararka qaarkood waxay og yihiin inay fiican tahay marka ay fadhiyaan kursiga kaydka.